Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii isboortiga halaba maalin kastaad kala socotaan barteena youtube-ka ciyaaraha latest tube iyo weliba muuqaal cusub maanta qodobadeena ugu horeeya sport waxaan ka eegi doono tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Thomas Tuchel ka hadlay xaaladda ciyaaryahan Rashford kooxda kubadda cagta The Gunners ama Arsenal laga yaabo inay u dhadhacaan caga iyo championship-ka waa sidii macquul ma tahay in Arsenal ay dib ugu laabato iyo waliba kooxda kubadda cagta United aad moodaa inay mashaariintooda ciyaaryahanka u wanaagsan bisha uu mar kale ka soo dhex muuqday ciyaaryahan Bruno Fernandes iyo dabcan waxa soo kale eegada horyaalada Champions League habeenku calayti la ciyaari iyo waliba kuwa la filay in kooxo ay fooda isdaraan haddaad ku cusubtahay channelkeena ama tahay marka u horta soo booqatid subscribe noosar soo kale tilmaamin gombolelka saad u hesho video kastaan soo dhino bahdaan ugu cusubtahay sida samee haddaan naga mitayna like nagu dhiirageli tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Thomas Tuchel ayaa uga degay kooxdiisa PSG kulanka caawa ay wajahi doonaan kooxda kubadda cagta Manchester United garoonkooda weyn ee Old Trafford wuxuuna uga degay tababare Thomas xaaladda ciyaaryahan Rashford soo ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahan runtii aan caadi ahayn oo ay wax kasta ay macquul ka noqon karto wuxuu yiri Rashford haddii uu ku jiro dilinta 18 ama dilinta ganaaca iyo waliba dibadiisa waa ciyaaryahan inta badan ama markasta isku day karo in uu goosha meel kasta ka soo togan karo marka waa inay siba difaacayaashooda ay indha gaara ku eegaan ciyaaryahan Rashford sida ayuu naga degay ciyaartoydiisa waana kulan Dortmund waana kulan wala sugaya kulanka caaw dhaxmari doono kooxda kubadda cagta PSG iyo kooxda kubadda cagta United agaay kooxda kubadda cagta Arsenal hadii aan waxaan moodaa in xaaladda kooxda kubadda cagta Arsenal siba horyaalka Premier League ay sanaheen mid wanaagsan say u socdaan iminka Arsenal waxa ku jiraan kaalintii 14aad waana markii ugu horeyso ay Arsenal xaaladan oo kale ay ku dhex jirto Arsenal waxay la soo wareegeen dhowr ciyaaryahan oo muhiim ah siba kooxda kubadda cagta Chelsea waxay ka soo qaateen ciyaaryahan William iminka Chelsea waxa ku jirta kaalintii 3aad kooxda kubadda cagta Athletic Madrid waxay ka soo gateen ciyaaryahan Thomas Partey iminka kooxda kubadda cagta Athletic waxay ku jiraan kaalintii 2aad soo kaleeyay kooxda kubadda cagta Lille ka dhisan dalka Faransiiska waxay ka soo gateen dhowr ciyaaryahan oo ka mid ah ciyaaryahan Pepe Gabriel iyo waliba ciyaaryahan kale oo magacaabo Pats marka soo kaleeyay kooxda Lille waxay ku jirtaa kaalintii 2aad Arsenal ayaa iminka waxay ku jirtaa kaalintii 14aad iyagoo haysta ciyaaryahan ku filan ciyaaryahan muhiim ah waxay u baahan Arsenal inay helaan ciyaartoy khibrad leh sida Ozil iyo Lacazette inay kulamada la ciyaarsiyo kooxda kubadda cagta Manchester United ay waxay soo gudbiyeen musharaxiinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta United bishii la soo dhaafay November waxa mar kale ka soo dhex muuqday ciyaaryahan Bruno Fernandes tan uu imaaday kooxda kubadda cagta United bil kasta moodaa inuu u sharaxay ama ka soo dhex muuqday ciyaartooyda ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta Manchester United si ugu soo biray cagay kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon dhowr jeer ayuu ku guulaysan noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan United bisha iminka waxaad moodaa inuu horkacay isaga waxa ku jira Maguire Fred Champions League hadii aan eegno waxa jira kulamooyin dhowr oo habeenku calayti la ciyaaray koox qaarkood aad moodaa inay durbaba rajadooda ay noqotay mid aan fiicneen kulamada hadii aan eegno sida la isku arkay Lokomotiv Moscow oo gurigooda joogta ayaa 1-3 waxa jirtay kooxda kubadda cagta Zalzburg Shakhtar 2-0 ayay ku qaraacday kooxda kubadda cagta Real Madrid Atlantic Madrid iyo kooxda kubadda cagta Bayern Munich hal ay ku kala tageen halka kooxda kubadda cagta Mönchengladbach oo gurigooda joogta waxa tumay garaacay kooxda kubadda cagta Inter Milan 3-2 Lukaku moodaa inuu 2 gool halka ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Marseille ayaa 2-1 dirtay kooxda kubadda cagta Olympiacos halka kooxda kubadda cagta Porto iyo Manchester City ku asheen inay dhibci kala qaataan kooxda kubadda cagta Atlanta iyo Magellan ayaa soo kale ku asheen inay dhibci kala qaataan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 1-0 dirtay kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam kulankan iminka isha ku hayno aan eegno waa kulankii dhaxmaray kooxda kubadda cagta Shakhtar iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa moodaa xaaladooda inay si fiicneen hadii la eego soo bixitaanka wareega knockout stage
maglabash ayaa hogaaminaysa groupkaas waxay leedahay 8 dhibcood Shakhtar 7 Real 7 Inter waxay leedahay 5 marka kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ku qasbantahay inay garaacdo kooxda kubadda cagta Mogadishu kulanka dambe ay ku qaabili doonto garooda weyn ee Panapi Stadium sida ayayna ku soo bixi kartaa kooxda kubadda cagta Real Madrid balse haddii la garaaco ama ay galaan baraajo ay kooxda kubadda cagta Shakhtar ay badiso waxaad moodaa inay aadayaan reer Qamsley ama ay ku biirayaan Europa League loo yaqaano Qamsley haddii aan eegno kooxaha Ingiriiska oo durbaba u gudbay wareegga kale ee 16 ee 16 ee loo yaqaano knockout stage waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Manchester City Liverpool iyo Chelsea saddexdooda waa ay gudbeen sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa u baahan tahay hal dhibix oo kaliya soo gudbaan wareegga kale ee 16 ee loo yaqaano knockout stage kulamada caawa la ciyaari doono haddii aan eegno waxaa foodes jiri doono dhowr kooxood siba haddii aan yara eegno kooxda kubadda cagta Krasnodar ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Reims soo kale kooxda kubadda cagta Istanbul waxay qaabili doontaa kooxda kubadda cagta Lisbon labadan ciyaar ayaad moodaa inay yihiin kuwa ugu horeeya ee la filayo in la ciyaaro saacadu markay tahay 8 qadar continuation daqiiqa kulamada kale ee la filayo inay ciyaaraan 11 habeenimo kooxda kubadda cagta Sevilla iyo Chelsea ayaa is arki doono kooxda kubadda cagta Club Brugge waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Zenit halka Dortmund ay qaabili doonto kooxda kubadda cagta Lazio Fenerbahce iyo Barcelona Juventus iyo Dinamo Kiev kooxda kubadda cagta United soo kaleeto waxay is arki doonaan kooxda kubadda cagta PSG waana kulan lagu fadhiyo inay kooxda kubadda cagta United ay helaan dhibco ugu soo baxaan knockout stage barnaamijka sported kala socoteen ciyaaraha latest waa naga intia farsamadii Munir codkii Bios aad u mahadsantiin